marka inaad ka raadido cizi magac ka raadido mid isaguba kaa hooseeya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u carooday aad isku sawirto idan maanta maxaa isku sawirayaa kuwa ummadda ugu liita midka qaniiska ah iyo waxa weeye midka xumaanta isagu faafiya ee ilaahay waxa weeye caasiyey ayaa isku sawiraya markaasaa waxaa le ninkii hebel ahaa oo taqancaanka ahaa ayaa la sawiranahay haye maxaa ka imaanaya waa kuwa ilaahay agtiisa loogu neceb yahay haddaad dhaqaala raadinayso ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa bixiya man kaana yuriidu hawaaba dunya fa cinda allahi hawaabu dunya waalaakhira war waxa weeye haddaad doonay hawaab adduuniyo in adduun wax lagugu siiyo ilaahay waxuu gacanta ku haya subxaanahu wa tacaala ow rabbi jalla wacala bixiya adduun iyo aakhira labadaba haye maalinka qabri lagu geliyo ee carada lagugu aasayo waxaa kugu markhaati furaya kan kula dhashay maalinka lagu duugaya waxuu odhanaya walaalkay wax fiican ma qaba jirin finimada waxa way bedelayey oo turjumayey heesow qaadi jiray fanaan bau ahaa allah iska cafiya wax fiican ma haynin maalinka carab lagugu shubayo ee laga soo gadoomo dhaqaalahaagiina wax matalayo waxa weeyaan magacii aad abuurtana oo aad islaahay waxba kuu talayaana hadda maalinkaasa qof kastoo maqla odhanaya ninkaas shaqo fiican ma haynin gabadhaas shaqo fiican ma haynin heesay qaadi jirtay filimay samay jirtay xumaantaadina way kaa dabamaraysaa haye waysaga ilaahi subxaanahu wa tacaala yidhi ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun kuwa jecel inay xumaanta ku faafto kuwa ilaahay rumeeyey oo waxa weeye jecel inay xumaanta ku faafto adduun iyo aakhiraba cadaab bay leeyihiin adduunkana waxaa ku taalla waxyaabihii aad turjuntay ama wixii aad qaaday ama xumaantii aad samayday ayaa saacad kasta lagu soo celcelinayaa war waxa weeye tusaale gaaban fanaaniintii magaca lahaa ee dhaqaalaha sameeyey ee markay meel istaagaan ba la isku sawirayey maanta aawey haye maanta aawey saacad kasta waxa weye la odhanayaa oo waxa way arkaysaa in heesahoodii lasoo waxa lagu markhaati gelinayo heestay qaaday ama heestaw qaaday lagu markhaati gelinayo riwaayaddii aad turjuntay lagugu ciqaabayo waxa weeye marka magaca waxa ugu wanaagsan noloshuna waxayba ku jirtaaba wa isaga ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi wa isaga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamayba man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan dayiba nolosha fiican waxayba ku jirtaaba midka ilaahay rumeeya oo acmaal fiican la yimaada rag iyo dumar kow doona ha ahaado ilaahay baa odhanaya waxaan ku noolayn nolol fiican dadka waxay kaga markhaati kacayaan markaad kitaabka ilaah u shaqaydo oo diinta alla waqti gelido hebel nin fiican u ahaa laakiin maalinka hees aad turjubi jirtay ama aad ka shaqaynito waxa way filin waxaa ka dhalanaya maalinka lagu aasayo xitaa walaalka inuu ku yidhahdo walaalkay wax fiican ma haynin waa kii kugu dhow waxa uu kugu dhowaa inuu ku yidhahdo wax fiican ma haynin allah iska cafiye kaas marka intaisa iman ka hor waxa la qabanayo deertu waa dan aakhiro loo socdo oo lagugu xisaabinayo maanta waxaad qabanaysaa fiiri oo ku xisaabtan in lagu horgeynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbina waxaad ogaataa waxaad qabanaysaa ma ilowsana